السلام عليكم ورحمة الله. kusoo dhawaada muuqaalkeena labaad aan ku barana video editing kaasoo ku saabsan programka loo yaqaan KineMaster. Hadaba muuqaalka ka soo horeeyay waxaan ku soo baranay laba xayawaan. labada qodob oo kala ahaa installation sida loo soo dego KineMaster and interface iyo wejiga hore ee KineMaster. Hadaba qodobkeena saddexaad wuxuu noqonayaa media and layer maxay tahay shaqadoodu. media and layer shaqadoodu waxa weeye hadaba waxaan galeynaa programka loo yaqaan KineMaster saynu u barano media and layer. media waa meesha u sareysa ayaad ku dhufanaysaa. horta media intaanaan furin waxaad aragtaa inaysan shaqaynayn layerka inuu shaqaynayo ayaad aragtaa media la'aantiis. media ayaan ku dhufanaynaa. media waad soo qaadi kartaa sawir, waad soo qaadi kartaa video, waad soo qaadi kartaa background, waad soo qaadan kartaa. hadda inagu waxaan soo qaadanaa background. background marka soo qaadano saan ayuu inoo noqonayaa. hadaba background marka soo qaadano background waad weynaysiin kartaa, waad kordhin kartaa. hadda rabtin waa soo yareyn kartaa. media waxa aragtaa layer waxaad aragtaa inay inoo shaqaysay markii aynu media keenay ama background hadda aan keenay. hadaba halkan waxaad dul saaraysid ayaad u isticmaali kartaa backgroundka meesha ku yaal ama video ama ku yaal ama sawir ku yaal. wixii aad dul saaraysid meeshaas ayaad layer ka soo qaadan kartaa. hadda waxaan soo qaadanaynaa ama sawir ama video waxaanu dul soo qaadan karnaa. inagu hadda waxaan soo qaadanaa background aynu soo qaadanaynaa. waxaad u jeedaa backgroundka inuu dul fuulay kii kale inuu dul fuulay. laba background sidoo kale waa dhinac dhigi kadhaa adoo tagaya media markaad hadda rabtiin inaad dhinac dhigto background kale saas ayuu dhinac dhigmayaa. hadaba qodobkeena saddexaad halkaas ayuu kugu joogaa. waxaan u gudbaynaa qodobkeena afraad ee ahaa transition. hadaba transition waa maxay? transition waxa weeye laba muuqaal sidaan oo kale waxa u dhaxeeya ayaa la yiraahdaa meesha arta u dhaxaysa ayaa laba muuqaal transition la laba muuqaal iskala gudbitaanka markii gudbaya. hadaba halkan waxa soo gelin kadhaa waxyaabaha kala gudboon baa soo galay transition effect ayaa soo gelin kadhaa. halkan transition effect ayaa soo gelisay waxaad dooranaysaa meesha laftiga ayaa dooranaysaa. halkan ayaa ku sii dhufanaysaa noocyada midka rabta ayaa ka dooran kadhaa. waxaad u jeedaa inuu muuqaalkii isbedelayo labada muuqaal dhexdoodii. hadaba transition effect waa midka. qodobkeeni afraad halka ayuu kugu egyahay. qodobkeena waxaan u gudbaynaa shanaad kaasoo ah cut and split, jarid aan kala jabin. hadaba si jarid aan kala jabin aan u isticmaali karaa. hadaba waxaad u jeedaa waxaan ku tusinayaa kan laftiisa ayaan ku tusinayaa background laftiisa taabanaysaa ama videoga ama sawirka. waxaad isticmaalaysaa manqaska halka ku yaal baad ku dhufanaysaa. labada dhinacood dhinacaad ka jaraysid baad ku dhufan ama left ka jar ama right ka jar. haddii left ka jaraysid right ayaan hadda ka jaraynaa. waxaa noo muuqata inuu soo jarmay backgroundkii weynaa. sidoo kale backgroundka weyn ayaan ku sameynaynaa split ku sameynaynaa. waxaad ku dhufanaysaa meeshaas oo ku qoran tahay split ayaad ku dhufanaysaa. waxaad u jeedaa inuu kala jabay oo uu yeeshay transition xitaa uu yeeshay. oo halkaas ay wax rabtay markaa ka dhigi karin saartina ka dhigi karin. hadaba muuqaalkeeni intaas ayuu ku egyahay. waxaa leen ka codsanayaa inaad sii share gareysaan asxaabteen la wadaagtaan like iyo comment inayna ka hilmaamin. wassalaamu calaykum.